guri apartment oo dabaq ah ayaa habeenkii ilaa subaxii waxaa furnaa tubada qubayska. Guriga inta uu biyaha ka buuxsamay ayaa biyuhu waxay u soo gudbeen dabaqyadii ka hooseeyay. Si degdeg ah dadka deriska ahaa ayaa waxa ay soo gangaraaceen guriga biyaha uu ka soo daadanayo, balse cid ka furtay ma aysan jirin. Waxaa lagu fikray in dadka guriga ay maqan yihiin ama in xilliga ay hurdayaan. Waxaa nasiib wanaag ahayd ninka apartmentiga mas'uulka ka ahaa in dabaqa qaybta sare uu degnaa. Markaas ayaa albaabka loo soo gangaraacay, waxaana loo sheegay in guriga qaybtiisii hoose apartmentigu in biyahay u soo gudbayaan. Ninkuna si degdeg ah ayuu u soo baxay, isaguna marka uu arkay dadka degan in taleefoonada iyo albaabada in aysan furayn, waxa uu go'aan ku gaaray in biyaha uu xakameeyo. Si uu biyaha u xakameeyana waxa uu ku fikray in jaranjarada gadaal ee gangaarka degdega xilliyada dabka uu kaco loogu talagalay inuu guriga ka galo. Ninkii marka uu guriga jaranjarada uu soo istaagayba waxa uu daaqada uu ku arkay gabar aanan dhan wadan oo halkaas sida meydka oo kale u jiifta. Gudaha ayuu u gudbay, mid kalena qubayska iyada oo meyd ah ayay ku jirtaa, waana halka biyaha ay ka soo daadanayaan. Biyihii ayuu xiray si degdeg ahna booliiskii ayaa la wacay. Dabaqii dadkii ku noolaa oo dhan biyihii inta ay iska iloobeen ayay bilaabeen in dhacdadani dilka ay ku fakaraan. Booliiska marka uu guriga imaaday waxaa la ogaaday in gurigani sida normalka ah in 2 gabdhood oo kaliya ay ku noolaayeen. Gabdhaha midood qolka jiifka ayay ku jirtay, midda kalena qubayska. Labadoodiina midna qubayska midna qolkeedii ayaa lagu dilay. Wax dhiig ah oo ka qubanayay gabdhahanina ma aysan jirin. Dambi baarayaasha waxa ay fahmeen in dilka gabdhahani ceeji in loo isticmaalay. Sababta ugu weyn ee dil gabdhahani loogu geysan karana kufsi ayaa loo badiyay, maadaama labadoodiiba ay wada qaabnaayeen. Si daliil dhammaystiran loo helo, qoonta ayaa waxaa laga qaaday faro si loo helo qofka dilkani geystay. Sidoo kale dambi baarayaasha waxa ay gabdhahani gurigoodii ay ku arkeen $14,000 oo jikada meel ka mid ah lagu qariyay. Sidoo kale alaabta guriga, gaar ahaan qolka ay gabadhani ku dhimatay, isku dhexyaac sida in la fatashay oo kale ayuu u muuqday. Waxaa intaa ka sii darnayd darbiga albaabka qaybta hoose ee guriga laga soo galo waraaqado yaryar ah oo ay ku dul qoran yihiin nambaro iyo sawirro dad caan ah, khaasatan fanaaniin ayaa ku dhagnaa. Xilliga dilkani uu dhacayna waxay ahayd xilli taleefoonada sida maanta oo kale caan aysan u ahayn. Dadku taleefoonadu waxa ay ku qoran jireen darbiyada sida Soomaalidaba darbiga dhuxul ay ugu xariiqan jireen. Gabdhahanina gurigoodii waraaqado ayay sidaa darbiyada ugu dhagsanaayeen. Laakiin fanaaniinta iyo dadka caanka sawirada ay la galeen albumyadani waxa ay dhalinayeen shaki ah in dilkani gabdhahani meelo fogfog sida dadkani caanka ah in baaritaan lagu samayn doono. Kiis aad u adag ayuu u muuqday dacwadani marka si guud loo fiiriyo. Dhammaan daliilooyinka dambi baarayaasha marka ay guriga ka soo ururiyeen waxay u soo gudbeen daliil kale oo dheeraada si ay u helaan in ay waraystaan dadka deriska dhaqdhaqaaq aanan caadi ahayn sida qeelo ama maalmahani apartmentiga wax aan normal ah haddii ay ku arkeen ama in kale. Nasiib wanaag qof walba waxa uu ku jawaabay wax aanan caadi ahayn oo apartmentiga aan uga shakiyay. Bilooyinkii la soo dhaafay ilaa isbuucyadani ma aanan arkin. Gabdhahani sidoodii kale waxa ay ahaayeen 2 gabdho oo saaxiibo ah oo aad loogu yaqaanay qaabgaraynta iyo dansiga. Mar walbana dansiga ayay aad u aadi jireen. Dambi baarayaasha daliilka ay guriga gabdhahani ka soo qaadeen shaybaanka dambi baarista ayay u direen. kadibna waxa ay u gudbeen gabdhahani waalidiintooda. Waalidiintu maba aysan ogeyn dambi baarayaasha ka hor wax gabdhahoodii ku dhacay. Naxdin kadib dambi baarayaasha waxa ay waalidiinta ka codsadeen macluumaad ama wax un ay ka shakisan yihiin ama ay ku fakarayaan haddii ay jiraan in ay ku caawiyaan si loo soo helo dambiilaha ficilkani xun gabdhaha ku sameeyay. Gabdhaha midood hooyadeedii waxa ay dhahday gabadheedii wiilka ay saaxiibada ahaayeen waxa uu ahaa qof aad u xanaaq badan. Dhowr jeer ayuu horaan dhanbaaxi ugu dhuftay. haddii uu dil jiro aniga wiilkaasi ayaan uga shakisanahay. Sida normalka ah dadka ajaaniibta marka xiriirka saaxiibtinimada ee lamaanaha la jooga aad ay inooga dhaqan duban yihiin.
qofka Soomaaliga ah inta badan kama ay suurtoodo in saaxiibtiisii ama saaxiibkiisii uu dilo uu nafta u dhaafiyo. haddii ay u badato xanaaq heerka u dambeeya qofka jirdil ayuu qofka u geystaa. laakiin dadka ajaaniibta qaarkood sida kiisaska noocani oo kale aad ku arki kartid in ay dilaan weliba gabdhaha inta ay jarjaraan cadcad hilibkoodii si aanan loo qabanin darteeda xayawaano ayay siiyaan ama meelo fogfog ah ayay ku tuuraan. dhammaan wax daliil ah ee lagu ogaan karo ama lagu soo raaci karo qofka waxa uu isku dayaa inuu tirtiro. waana wax inta badan dhaca in nin uu dilo saaxiibtiisii ama xaaskiisa. haddaba gabdhaha hooyadoodii marka ay shakiga booliiska ay ku furtay si dhaqsa ah gabadha saaxiibkeedii oo waddada socda ayaa dambibaarayaashu ay soo qabteen. kadibna waxaa laga waraystay gabadha ayaa xilliga ay ugu wardambaysay. waxa uuna dambibaarayaashii u sheegay in dilka saaxiibadiisii uu maqlay aadna uu uga xun yahay. marka la weydiiyey isaguna yaa dili kar oo aad uga shakisan tahay waxa uu dhahay wax xog ah kama hayo, laakiin habeen ayaan waxaan arkay 2 nin midkoodna koofiyadda Christmaska ay u xiran tahay in guriga uu ka soo baxay. xaafadda qof degan maadaama aanahay waddada ayay nimankan igaga hor imaadeen. waxaa laga codsaday faahfaahin iyo tilmaan dheeri ah in nimankan uu ka bixiyo. si wanaagsan oo la aqoonsan karo ayuu nimankani u tilmaamay. 2 nin ayuu sheegay, laakiin mid ka mid ah ayaa la soo qabtay. tilmaanta uu ninkani sheegay iyada oo la raacayo gabadhani la dilay midood wiil kale oo ay saaxiibo ahaayeen in sifaadkaasi uu leeyahay. isagii ayaana la soo qabtay isaga oo shaqadiisii ku jira oo waxba aanan ka ogeyn sababta loo soo qabtay. marka hadalka lagu furayna waxaa wax laga weydiiyey gabadha saaxiibadiisii ahayd. waxa uu sheegay in isbuuc oo dhan aysan is arkin mashquul dartiisa. si hadalka afkiisii looga soo saara waxaa lagu dhahay saaxiibadaadii waa la dilay, adiga ayaana lagaaga shakisan yahay, sababta aan kuu haysanana waa intaas. ninkii naxdin marka uu maqlay in saaxiibadiisii la dilay waxa uu bilaabay in halkaa uu ku ooyo. dambibaarayaasha saacado badan marka ay waraysteen waxa uu caddaatay in ninkani qof wax og inuusan ahayn, laakiin tani ninkani kama aysan saarayn liiska dadka laga shakisan yahay. marka uu xoogaha cabsida ama qiirada uu ka baxay waxaa afkiisii ka soo baxday goobta ay ka shaqaynaysay saaxiibadeedu ma tagteen. dambibaarayaasha ninkani ka hor ma aysan ogeyn in gabadhani meel ay ka shaqayn jirtay. dadka qaarkood khaasatan dadka sida ofishiyaalka u shaqeeya waa dad dowladda u rajistar garaysan, laakiin waxaa jira dad aanan ofishiyaal u shaqayn oo aanan dowladda u rajistar garaysnayn. gabadhaasina dadkaasi ayay ka mid ahayd. ninkii ayaa waxaa lagu dhahay saaxiibadaadii halkee ayay ka shaqaysaa, faale inaga sii si aan dembiilaha u soo qabano. iyada oo la kontaroolayo waxa uuna tilmaamay intaa kadib meel kalaaba. kadib dambibaarayaasha waxay imaadeen goobtii loo tilmaamay ee kalaabka. waxa ayna ka waraysteen goobtaasi dadkii ka shaqaynayay gabadhii halkani joogtay iyo xogta ay ka hayaan. qof walba waxba kama oga ayuu dhahay ilaa hal gabar un mooye. waxa ay dhahday gabadha sida asalkaa xog dhammaystiran idinma siin karo, laakiin gabadhaasi marka ay halkani habeenkii ay ka baxdo waxaa gadaasheedii sida qof ilaashanay oo kala ahaa nin mar walba halkani imaada. xilli walbana gabadhaasi ayuu ninkaa geesgees u ula bixi jiray. marka ay gabadhu sidaa dhahday waxaa la weydiiyey ninkaasi sidee ayaan ku heli karnaa. kadibna tilmaam fiican ayay gabadhani siisay. dambibaarayaashii ninkii ayay u imaadeen. waxa uuna u ekaa qof iska miskiin ah oo dembi heerkani oo kale aanan samayn karin. laakiin dilaayaasha shaydaanka oo kale inta badan dadka aanan u ekayn oo miskiinka la mooda ayay ka soo baxaan. ninkanise markii waraysi lala sameeyey waxa uu sheegay in gabadha uu aadkuu u jeclaa. waxa uuna sheegay inuu ka codsan jiray in waqti badan ay siiso. xitaa dhowr jeer ayuu waxuu u soo bandhigay maqaayad un haddii gabadhay u raacdo inuu siin doono $300. ninkani wixii qalbigiisii ku jiray iyo damciisii jaceylka ahaa ayuu dambibaarayaasha u soo bandhigay. laakiin dambibaarayaashu waxa ay ku fakarayeen ninkani maadaama gabadhan uu aadkuu u
jeclaa xitaa maqaayad inay u raacdo darteeda lacag ayaan kugu siinayaa heerkaasi maadaama jaceylkiisu uu gaarsiisan yahay. marka ay gabadhani weji ay siin weysay in macquul ay tahay in ninkani uu dilay ama inuu soo daba dhigtay uu gurigeedii ugu imaaday kadibna uu kufsaday, tan kalena si aanay u sheegin darteeda inuu dilay. isaguna lagama saarin liiska dadka laga shakisan yahay, waa la dhegaystay oo keliya si raggani looga dhex helay dambibaarayaasha. waxa ay kolkani xal u arkeen in taleefoonada gabadha iyo dadka ay la hadashay in baaritaan ay ku sameeyaan. shirkadda taleefoonada marka ay dalabka u soo gudbiyeen dambibaarayaasha waxaa lagu dhahay dhowr isbuuc kadib ayaan dalabkiinii fiirin doonaa, waayo xilligaasi waxaa si aad ah loo baarayay weerarada daaraha mataanaha ka dhacay. sidaasi darteeda kiis yar waqti uma aysan hayn shirkadaha in ay baaraan, tanina waxa ay sabab u ahayd in kiiskani uu dheeraado. nasiib wanaag gabdhaha midood khaasatan midii qolka jiiftay qoorteedii ayaa waxaa laga helay faro, halka midda kale ee quwayskuna biyuhu wax walba oo daliil noqon kara ay qaribeen. farahani shaybaarka waxaa loo barbardhigay raggani eedaysanayaasha ahaa haddii midkood dembiga uu ku soo bixi doono. nasiib wanaag raggani marka fara iyagana laga qaaday wax natiija oo isku ekaanshaha midna lagama helin. dhammaan dadka gabdhahani cilaaqaadka ay la leeyihiin kuwoodii ugu badnaa dadkani la soo qabtay ayay ahaayeen, kuwanise shakigii xoogga badnaa ee laga qabay marka lagu fashilmay waxa ay dambibaarayaasha ku qasbanaadeen in eedaysanayaal kale ay soo raadiyaan. dambibaarayaasha waxa ay imaadeen kolkani gabadha halka ay daansiga ku ciyaari jirtay iyo in ay baaraan dadka ay la raabgarayn jirtay. waxa ay iyaguna sheegeen marka halka investigation ay ku sameeyeen in gabdhahaasi isbuuc oo in aysan halkani imaanin. xaaladani cajiibka ah dambibaarayaasha meel ay wax ka bilaabaan ayay garan waayeen. inta badan waxaa aad u adag in la xaliyo dileelka dadka macsuumka ah. gabdhahani dad iska shacab ah oo waxweyn oo lagu soo raaci karana aanan haysan ayay ahaayeen. dhinac kasta oo laga fiiriyana aad ayay u adkaatay in dilaaga la soo saaro. iyada oo xaalka sida uu cakiran yahay ayaa laamaha booliiska waxaa laga soo wacay dhanka iyo shirkadaha taleefoonada, kadibna nambaradii ayay shirkaduhu u direen dhammaan dadka ay la hadleen gabdhaha. dadka ay la sii hadleen dhammaantoodii waa loo soo gudbiyey, kadibna dhammaan booliisku marka ay hadallada qiimeeyeen hal mid ayay ka shakiyeen. habeenka uu dilkani u dhacay waxaa guriga gabdhaha taleefon ka soo diray wiil, weliba isaga oo ooynaya ayuu qof cajal u duubay. qofkani ooynaya ee taleefonka guriga gabdhaha ka soo wacay signal oo keliya ayaa lagu ogaaday waa taleefon isaga uu lahaa, ma aha qof cilaaqaad la leh gabdhahani sida bilowgii muuqatay. dambibaarayaasha codkani marka ay dhegaysteen qofka codka loo soo diray ayay xaqiijiyeen gurigiisii, kadibna halkaasi ayay tageen. nin wanaagsan ayuu u muuqday oo gentleman ah. marka ay albaabka soo gargaraaceen soo dhowaada ayuu ku dhahay, waxaan doonaynaa in aad macluumaad dheeryaha aad inaga siiso taariikhdaasi qofka codkani isaga oo ooynaya kuu soo diray. waxaana kaa rabnaa faahfaahin dheeryah inaad inaga siiso taariikhdaasi qofka codkani isaga oo ooynaya kuu soo diray. waxa uu ku dhahay ninkii dhalinyaro aan guriga ka kiray ayaa midkood bannaanka saqdhexa joogay, fura ayuu iga rabay, sidaasi ayuu u qiiraysnaa. waxa uuna u tilmaamay halka dhalinyarada laga heli karo. dambibaarayaasha iyaga oo baaritaan ku wada oohintaasi ayaa wiilkani gurigiisii ay imaadeen isaga oo iloobay oohinta iyo waxyaabahaasi oo dhan. dambibaarayaasha waxa ay ku haminayeen oohintani in cilaaqaad ay la lahaan karto dilka gabdhahani. wiilkani marka wax laga weydiiyey kiiskaasi waxa uu ku jawaabay wax aan ka ogahay ma jiro, taleefonkaasise ma xasuusto. waxa uu sheegay bilowgii been xoogaha markii la dareemsiiyey in arrintani dacwo weyn ay tahay waxa uu bilaabay in runta uu sheego. waxa uuna dhahay saaxiibkaygii aniga oo habeen aan isla socno ayaa gabdhahani inaga hor imaadeen. kaftan iyo sheeko dheer ah kadib waqtiga ayaa inagu dhammaaday, kadibna gabdhuhu gurigoodii ayay soo aadeen. saaxiibkaygii waxa uu gabdhuhu ku dhahay fura ma wadana gurigeenniina waa uu fog yahay ee caawa inoo oggolaada inaan idinla seexano. gabdhihii way aqbaleen, laakiin shardi ayay inagu xireen in aan qolka fadhiga seexano, subaxiina in sidaa qolka fadhiga albaabka aan uga baxno. waxa uu ku daray wiilkani gabdhahaasi anigu ma aanan aqoon, saaxiibkaygii
saaxiibkeygii ayay isyaqaaneen, aniguse qof saaxiibkeygii wehlinaya oo keli ayaan ahaa, laakiin saaxiibkeyga ujeeddo qarsoon ayuu gabdhahaasi ka lahaa. waxa uuna doonayay xiriir saksiya marka uu dhahay caawa oo keliya aan idinla seexano. nasiib daro marka gabdhahani ay ku dhaheen qolkani fadhiga ma soo dhaafi kartaan, waxa uu dhahay oo inaga ma halkani inaan seexano oo keliya miyaan u imaanay, waa inaan shaqadeennii qabsanaa. anigu waan ka diiday, balse isaga ayaa gabar qol ku jirta si toos ah ugu galay. midda kalena Qubayska ayay ku maqneed xaqiiqdii saaxiibkeygii in sidaa gacan uu u fududaaday. anigu aad ayaan uga xumaaday, aniga oo wanaagsan oo aadna uga qiiraysan gabdhahani waxa lagu sameeyey ayaan soo wacay ninka guriga si aan furo u weydiisto, waayo waxaan doonayay in guriga oo dhan aan isagaga soo tago. marka uu iga qaban waayay ninka, cod ayaan u duubay. ugu dambayn macluumaad dhammaystiran ayaa laga helay dilka gabdhahani, laakiin wiilkani qisada sharaxay iyo midka uu ku sheegay saaxiibkiisii labadoodiiba qisada si isku wada mid ah ayay u sharxeen. marka la soo gaaray yaa dilay qofba qofka kale ayuu farta ku fiiqayay. testi dheer ah kadib waxaa la ogaaday wiilkani oonay wiilka kale saaxiibkiisii ahaa in xiriir saksi uu doonayay darteeda in gabdhahani u dilay. maxkamadda ayaana labadoodii la soo hor istaajiyey, xabsi daa'ina ayaana lagu xukumay.